xisbiga howl dheer iyo muddo dheer uu kusoo jiray qabanqaabadiisa iyo dhismihiisa sida aan rabnaa iyo nooca xisbiga aan u rabnaana waa in uu noqdo xisbi qaran oo dadka Soomaaliyeed oo dhan ka dhaxeeya muuqaal qaran leh oo ay u dhan yihiin dadka Soomaaliyeed sidaas daraadeed waxaan go'aansanay in maamul kooban oo ku meel gaar ah la sameeyo ilaa shirweynihii qaranka xisbiga oo dadka dalka iyo dibadda jira Soomaalida oo dhan ay ka soo wada qayb galayaan oo ay fursad u helayaan in ay xisbiga ka mid noqdaan waa marka koobaad marka labaadna ay mas'uuliyiinta xisbiga ee ayagu ay u arkaan in ay hogaamin karaan xisbiga markaas ay xilka u dhiibtaan inta ka sii horeysa inteena oo aan anigu ugu weynaa ugu odaysanahay ku meel gaar ayaan nahay ilaa shirweynahaas qaran laga qabanayo bisha March aakhirkeeda ama horaanta April bisha March aakhirkeeda insha Allah inta aniga iyo raggan iyo gabdhahan meesha laga sheegi doono marka waa ku meel gaaran wadanahay kulligeen ilaa shirweynaha qaran laga gaarayo markaas ayaa maamulkii dhabta ah ee heer qaran xisbiga la sameyn doonaa sidoo kale xisbiga dalku maadaama uu federaal yahay dowlad goboleedyada oo dhan meel walba uu ka jiri doonaa maamulkiisa ayuuna meel walba ku yeelan doonaa oo dadka deegaankaasi ayagu ay dhisteen oo ay sameysteen halkan marka waxaan rabaa maanta sida hore loo sheegay aniga si ku meel gaara ayaa gudoomiyaha xisbiga la iigu sii dhiibay aniguna sidoo kale waxaan go'aansaday in mas'uuliyiin kale oo ballaaran ayagana ay ka soo qayb galaan nidaamka ama haykalka maanta aan halkan uga dhawaaqayo ma aha haykalkii ama nidaamkii ku qornaa dastuurka tiradiisii oo dhammaystiran ma aha laakiin in maxaan ku idhahdaa aan ka soo qaadno inta shaqada qaba lahayd xilligaas qabanqaabada loogu jiro ayay ahayd sidaas daraaddeed aniga xasan sheekh maxamuud gudoomiyaha ku meel gaarka ah xisbiga midowga nabadda iyo horumarka gudoomiye ku-xigeenka arrimaha siyaasadda waxaan rabaa akhyaarta qofkii aan u yeero inuu halkan u yimaado haddii aan la yiraah gudoomiye ku-xigeenka arrimaha siyaasadda iyo istiraatiijiyadda dr cabdifataax ismaaciil daahir tafadal doctor gudoomiye ku-xigeenka arrimaha qorsheynta iyo horumarinta xisbiga mudane xuseen sheekh maxamuud xuseen fadal gudoomiye ku-xigeenka arrimaha xubnaha bulshada iyo wacyigelinta marwo sacdiye salaad samatar way naga maqan tahay safar ayay ku maqan tahay marwo sacdiyo gudoomiye ku-xigeenka arrimaha dowlad goboleedyada mudane cabdulaahi sheekh ismaaciil fartaag afartaas xubnood waa gudoomiye ku-xigeenno sida aan u tilmaanay oo kala ah iyo howlaha aan u tilmaanay loo kala igmaday haddii aan la yiraahdo waxaa tiimka hoggaanka ah ee gudoomiyaha iyo ku-xigeenadiisa la shaqayn doono ayaguna xubno xogeyaal ah oo kooban oo ka tirsan guddiga golaha fulinta ee xisbiga mudane axmed macalin fiqi xogayaha guud ee xisbiga midowga nabadda iyo horumarka mudane cabdiraxmaan maxamuud sheekh cabdiraxmaan beene beene xogayaha arrimaha dibadda iyo xiriirka jaaliyadda dr beene beene waa naga maqan yahay isagana mudane axmed xasan aadan xogayaha maaliyadda iyo qorsheynta xisbiga midowga nabadda iyo horumarka mudane ciise guure xogayaha dhalinyarada iyo ciyaaraha tafadal ustaad ciise mudane dr khaalid cumar cali xogayaha dhaqaalaha iyo horumarinta wax soo saarka mudane cabdulaahi maxamed cali sambalolshe xogayaha arrimaha gudaha dowlad goboleedyada iyo amniga isagana safar ayuu ku maqan yahay shaqo wuuna lagu soo biiri doonaa haddii alla yiraah xubnahaas aan halkan ka tilmaamay waxay muxuu ahay yihiin ama wakiil ka yihiin xubnaha golaha fulinta xisbiga midowga nabadda horumarka
midowda nabadda iyo horumarka waxaanay ka shaqayn doonaan muddada dhow ee soo socota inay qabanqaabiyaan meel mariyaan ilaa jamhuuriyadda dhinacyadeedoo dhan ay tagaan oo ay xisbiga dhismihiisii ballaariyaan marka haddii alla yidhaahdo bisha maars waxaan isugu imaan doonaa shirweyne qaran oo dalka iyo dibaddoo dhan la isaga imaan doono halkaas oo markaa si kama dambays ah ee sharciyadda xisbiga loo dhammaystiri doono hadday tahay ansixinta dastuurkiisa oo joogtada ah permanentiga ah hadday tahay xeer hoosaadyadiisa hadday tahay doorashooyinka laga soo bilaabay ilaa guddoomiyaha ku-xigeenadiisa golaha fulinta golaha dhexe dhammaan iyo guddiyada kale ee takhasusaadka gaarka kala leh sida guddiga xalinta khilaafaadka iyo guddiga anshaxa iyo maxaanku idhahdaa dhammaan waxaa si kama dambays ah loogu dhisi doonaa shirweynahaas haddii alla yidhaahdo bisha maars qabsoomi doona oo dal iyo dibad in la isaga yimaado aan raba inta ka horeysa akhyaartan garbahayga taagan iyo gabdhaha iyo ragga kale aan sheegnay laakiin galabta howlo shaqo ay ku maqan yihiin awgood fursadda u heli waayey inay halkan yimaadaan ayaa mas-uul ka ah muddadaas in ay howlaha xisbiga sii socdaan waa mas-uuliyaddaas buuxda waa lala soo xiriiri karaa waxbay laga weydii karaa kelmadooda iyo maxaanku rahaa taladii ay ku yidhaahdaanna waa talo iyo kelmad uu leeyahay xisbiga midowda nabadda iyo horumarka aad iyo aad aad u mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu